haddaynu ku horeyno baxriga u horeeyo loo yaqaano baxru tawiil. baxrigaasi waa badaha carbeed ka ugu muhiimsan, gabayada carbeed badankooduna ay ku socdaan. ilaa culimada qaar ay yidhaahdeen thuluthu ashcaari alcarab ayaa ku socda gabayada carbeed. 3 marka loo qaybiyo meel ayaa ku socota baxrigaas. baxrigaas wuxuu ku yimaadaa facuulun mafaaciilun oo 8 jeer ah. facuulun mafaaciilun facuulun mafaaciilun facuulun mafaaciilun facuulun mafaaciilun. waxaa daabit looga dhigaa sida caanka طويل له دون البحور فضائل أما بين البحور فضائل. طويل له بين البحور فضائل فعول مفاعيل فعول مفاعيلون. qaabab kalena Soomaalidu way u qaadaa oo kala duwan. waxaa kamid ah طويل له بين البحور فضائل فعول مفاعيل فعول مفاعيلون. gabayada ku socda caanka waxa kamida 3 kamida mucallaqaadka 10 ah oo mucallaqatu Imriil Qays al-Kindi iyo mucallaqatu Tarafat ibn al-Abd ninka loo yaqaano iyo mucallaqatu Zuhayr ibn Abi Sulma. 3daasiba waxay ku socdaan baxrigan iyo gabayo kale fara badan oo dawaawinta carbeed laga helayo. haddaynu mucallaqada Imruul Qays waxoogaa ka soo qaadano, wuxuu Imruul Qays uu yidhi: qifana biki min dhikra habibin wa manzili بسقطي اللواء بين الدخول فحوملي فتوضيح فالمقرات لم يعفر اسمها لمن سجتها من جنوب وشمال ترى بعر الأرآم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفلي. baxrigaasi markaa waa buxuurta ka ugu muhiimsan weeye. xagga gabayada cilmigaana ka ugu caansan ku socda waxaa kamid ah Shaatibiya, waxaa kamid ah Haa'iyat ibn Abi Daawud as-Sijistani iyo kuwa kale oo badan ayaa ku soconaya.